haddana qowmu luud waad ogtihiin sida loo halaagay. maxaa lagu halaagay iyakana? waxaa lagu halaagay ficilkaasay adduunka la yimaadeen, inay raggu maaragtaan ragga ay wax ka dayaan. saddexdii malag ee loo soo diray nebi ibraahim calayhi salaam ayay soo mareen. waxay u bishaareeyeen nebi ibraahim inay maaragtaan haajara ama saara inay wiil u dhalayso, wiil la yidhahda magaciisa yacquub, wa min waraa wiil la yidhahda magaciisa isxaaq, wa min waraai isxaaqa yacquub bay ku yidhahdeen. waa 3 malag oo suurad aadamiya loo soo yeelay ayaa ku soo hoyatay nebi ibraahim calayhi salaam. nebi ibraahimna khaasiyad wuxuu lahaa, martiqaadku aada u jeclaa baa la yidho. khasaaisha cajiibkaee nebi ibraahim lagu ammaanay waxaa ka mid ahayd baa la yidhi, weligii cunto ma cunin ilaa marti uu raadsaduu la cunteeyo mooyaane. markuu arkay 3 nin oo martiya ayuu u maleeyay bashar. xoolihiisii intuu ku noqday ayuu dibi yar oo markaa dhaylaa intuu soo gowracay ayuu uga soo dhigay maaragtaan xaniid ayuu uga soo dhigo uu ula yimiday. markuu hor dhigay buu ku yidhi maalakum maxaad la cuni laadihiin buu ku yidhi cunnada, oo ay gacmihiinu la laaban yihiin, gacmihiina aada la duubateen. markaasay ku yidhaahdeen annaku ma nihin bashare, annaku waxaa nahay malaa'ig baa nahay. malaa'ig baa nahayoo waxaan u soconnaa 2 shay. adigana bishaaraan kuu sidnaa bishaaro, oo bishaaradan kuu sidnaa waxa weeyaan waxaa ku dhalan doona wiil magaciisa la yidhahdo isxaaq. isxaaq gadaashiisana waxaa ku xigi doonaa yacquub, oo isxaaqna wuxuu dhali doonaa yacquub. intuba waa wada nebiyo weeyaan. isxaaqna waa nebi, yacquubna waa nebi. yacquub calayhi salaam wuxuu sii dhali doonaa nebi yuusuf calayhi salaam iyo 11 walaalihiya. intaasi waa inta markaa nebiyada reer bani israa'iil oo dhan marka dambe ay ka soo bixi doonaan. lidaalika ibraahim waxaa lagu magacaabaa shajaratu lambiyaa, geedkii ambiyada. ambiyada intooda badan oo dhan waxay ka farcameen nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam. hadduu aadam abulbashar ahaa baa la yidhi, ibraahim calayhi salaam isaguna wuxuu noqday abulambiyaa. haajarana waxay u dhashay ismaaciil. ismaaciil sulbigiisana waxaa ka soo baxay muxamed calayhi salaatu wasalaam. ana dacwatu abi ibraahim wa bishaaratu ciisa bnu maryam, wara'at ummii xiina waladatnii nuuran kharaja minha fa adaa'a qusuura shaam. xadiidka nebigu sala allahu calayh wasalam waa kii lahaa, anu ducadii aabbahay ibraahim baan ku imiday. ciisa calayhi salaamna waa isii sheegay imaadkayga. hooyadayna habeenkii aniga ay qaaday ama ii dhalaysay waxay aragtay buu nebigu yihi iftiin ka soo baxay oo adduunka qusuurtii ku taalla shaam iyo furus iyo ardulxabasha oo dhan ayuu nuurkaasi habeenkii gaadhay baa la yidhi. ilaa adduunka dadkii gaalada ee boqorada ahaa ee ku noolaa dawaaqiidkay ilaahay ka sokeeyey caabudayeen, habeenka isbedel baa laga arkay. kuwii dabka caabudaya dabkii waxba habeenkaa waa u shidmi waayey. qolo walba waxay caabudaysa habeenka isbedel baa laga dareemay. ilaa ay u yeedheen faaleeyaashii iyo saxaradii ay yidhaahdeen adduunka xalay maxaa ku soo kordhay bal noo sheega. ilaa ay yidhaahdaan waxaa dhashay xalay toole khaatamul ambiyaa baa xalay toole adduunka soo galay. imaamu lambiyaa sayidu waladi aadam calayhi salaatu wasalaam ayaa xalay toole dhashay oo adduunka ku soo biiray. lidaalika wax badan ba adduunka iska bedela baa lagu yidhi, waana isbedelaysaa caalamku, khalaas isbedelaya. marka nebi ibraahim calayhi salaam markan isxaaqna loo bishaaraynayo 100 da-diisu kama yaro baa layidhi qiyaastii. xaaskiisii saara oo gadaashiisa fadhiday oo iyaduna 90 da-deedu ay tahay baa la yidhi, ayaa xaggaa dambe ka hadasho. way maqlaysaa bishaarada loo sheegayo laleeyahay wiil baa inii dhalan doona isxaaq la yidhaha magaciisa. markaasay tidhi qaalat yaa waylata aalidu wa ana cajuuzun wa hada baclii shaykha ina hada la shay-un cajiib. qaaluu atacjabiina min amri illah raxmat ullaahi calaykum wabarakaatuhu ahla albeyt inahu xamiidun majiid. waxaa lagu yidhi ma amarka ilaahay baad la yaabtay? aalidu wa ana cajuuzun bay tihi, ma dhalayaa anoo islaantan gabowday ah oo odayguna uu yahay odaygan duqa. ilaa xilligaana bilaa ilmo ayaa nahay oo ilmo ilaahayna maba siine, oo da-daa waxaan ku soo gaarnay bilaa ubade ma dhalayaa? markaasuu loogu jawaabo lagu yidhi atacjabiina min amri illaah, ma amarka ilaahay baad la yaabtaa lagu yidhi, waa amar ilaahay weeyaane. marka horena ilmaha awlaadda ilaahay baa inaga hayay, haddana ilaahay baa inii furay. soo doonayaala waa kuma
waa allah tabaaraka wa tacaala, suu doona yeela waa ilaahay. marka horena isagaa inaga hayay, haddana isagaa inii furay, dee amarka isagaa iska leh. dhakhtar ma aha, dhakhtar waxba ku siin maayo, ka waxbixiyo waa ilaahay. awlaadda ilaahay baa bixiya. markaasay u sheegeen ee ku yidhaahdeen adiga bishaaradaa baan ku wadnaa, qowmuluudna waan u soconaayo adduunkan ka soo qabanaynaa. laanna fasaad caalamka hortood aanan ka jirin bay ku soo kordhiyeen, deedna waa amar baan qabnaa in adduunka laga gooyo qoladaas. xanuunka kansarka la yidhahdo walciyaadu billaah, meesha uu qofka ka gaadho waa la gubaa baa la yidhah, ma waa la gooyaa, dawo kalama leh. maadaama xanuunka adduunka iyakuna ay ku soo kordhiyeen, waa la goynayaa, caalamka waa laga goynayaa. ummadihii naga horeeyey sidaasaa ilaahay ula tacaamulayay. 3 rusul luud bay ku soo hoydeen calayhi salaam. haweeneyda nebi luud uu qabayay ayaa gaalada hoosta kala shaqaynaysa oo maarataane khaa'inad ahayd. daraba allahu mathala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin wa imra'ata luut kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahumaa falam yugniyaa canhumaa min allahi shay-a waqiila dkhula annaara maca adaakhiliin. labadaa nebi xaasaskooguba khiyaanay nebiyada kula joogeen. gaaladay hoosta kala shaqaynayeen, labaduba hoostay uga dirtay baa la yidhi fariin ay tiri rag baa soo hoydee soo dhaqsada. aqalka agagaarkiisi bayse soo dhoobeen. luudow waan ognahay rag inay ku yimaadeen, noo soo saar baa lagu yihi, waan rabnaaye. cajiib. uu fadhiisan waaye nebi luud calayhi salaam. nin dhan oo martidiisii laleeyahay soo saar ka warrama oo haddana nebiya. low ana lii bikum quwa sooma dhihin aw aawi ilaa ruknin shadiid. laanna nebi luud degaankan degaankii uu deganaa ma aha, degmadiisi ma ahayn baa la yidhi, reerkiisu ma deganayn. maadaamuu qaraabo iyo qareen iyo ehel uu meesha uusan ku lahayn, wuxuu yidhi haddaa aan maanta tolkay aan dhex joogi lahaa sidaa maanta iyo lamaad dhaqanteen buu ku yidhi. soomaalidu tolka xagga adduunyada iyo qabyaalada iyo baadilka isku gargaarsataa, laakiin nebi luud calayhi salaam qabyaaladiisu waxay ahayd bimacnaa diinta ilaahay bay igula tacaawuni lahaayeenoo martidayda maaragtaane maad soo hunguriyeyseen buu yidhi, waxaa inaad ula timaadaan, laakiin waa cidlada waxaad igu arkaysaan. ilaa uu u gaadhay inuu yidhaahdo haa-ulaa'i banaatii huna adharu lakum faataquu llaha walaa tukhzunii fii dayfi alaysa minkum rajulun rashiid. war waa martidaydii, war miyaanad aqoon buu yihi martida qadarkeyga miyaanad garanayn? nin caaqil ah oo caqli le oo wax fahmaya on la hadla muusan inigu jirin miyaa? war waxa ragga aada ula imanaysaan looguma talagelin ragge, gabdhaha loogu talagalay. anigana gabdhaha ilaahay i siiye, gabdhahayga guur xalaala intoo nii guuriyo, iyaka ayaa waxaa loogu talagalay ula kaalayo hana nii dhiso, laakiin waxaa ragga looguma talagelin buu ku yidhi. mar uu baxaa, mar uu soo noqdaa, uu fadhiisan waayey. hal mar keliya malagii u soo xigay baa fadhiisiye oo ku yidhi yaa luud fadhiiso, annaku ma nihin bashar baa lagu yihi, waxaan nahay malaa'ig ilaahay soo diray baan nahay. kuwan dibadda joogeed nooga baqaysana ayakaabaan u soconaaba. ballankuna waaba subaxa. ballanku waa goorma? ina mawciduhum asubx alaysa asubxu biqariib. ballankuna waaba subax. saacadda aan haysanaba in adduunka laga qabto, la baabi'iyo, la tirtiro waaba salaada fajar, waagu markuu baryo. subaxuna kii dhawaa miyuunan ahayn? hadalkaa waxaa laga fahmayaa bimacnaa habeenkii oo dhan bay ragguna ay ridda nebi luud u joogeen, ay soo saarta ku hayaan oo aqalkiisay agtiisa saa ugu dhooban yihiin. isaguna marna martidu u galaayo ma dareensiiye, uu la yar hadlaayo, uu u sheekeeyaa, marna qoladan uu tagaayo uu iska sasabaa.
markaasaa subaxu ka dhow muunan haynba waxaa lagu yidhi iridii bay hor fadhiyaan soo ma ahayn haa halkaa ka saar baa lagu yidhi gabdhahaaga reerkaaga halkaa ka saar adiguna halkaa ka bax laakiin islaantaadu kuma jirta ha ogaata baa lagu yidhi islaantaada kuma jirto kuguma jirto cidda badbaadaysa iyadu kuma jirto iyadu jamaacadan ay la socotaa baa lagu yidhi qowma daalimiinkan ay la socotaa leanna nidaamka qoomkan ay qaadatay iyadu banaat almuslimaat dumarka muslimaadkana waxaan leenahay haddaa dhaqankeena islaamka ee ina baraya kala dambeynta iyo ismaqalka iyo is-ixtiraamka dhulkan gaalada markii la yimida haddii dhaqankii laga tallaabsado oo dhaqanka dadkan ay samaysteen lagu tallaabsado ayakaad ka mid tahay ogow nebi islaam uu qabayay baa nebi luud lagu leeyahay haweenaydaadu kulama socoto kuma jirtana cidda badbaadaysa ehelkaadana ka mid maha baa lagu yidhi iyadu jamaacadan dibadda joogtay la halaagaya la duubayo ayay ka mid tahay baa lagu yidhi leanna gaaladay hoosta kala socotay weeyaan acmaashooday raalli ka ahayd ficilkaa xunay samaynayaan bay raalli ka ahayd dhaqanka iyaku ku dhaqmaan bay ku dhaqmaysay dhaqan mooday marka jamaacadaas iyadu ka mid tahay ogow lidaalika qof allii qofkii dhaqanka dadka kale ay samaysteen horumar intuu u arko dhaqankiisii islaamka quursada kuwa unbu qiyaamaha ka mid noqona ogaada iridii ayaka fadhiya markaa albaabkii nebi luud ma aadina xaggii dhinacii kalu ka baxay baa layidhi gabdhihiisiina uu saaray isagiina uu baxay islaantiina way ka daba baxdaa layidhi saddexdii malag markay baxeen islaanta ayaa markiiba calaamad bay u samaysay ay leedahay raggay ku leedahay war waa laga baxay aqalkii ee soo gaadha saasay u jeesataa layidhi jeesadkay jeesatay halkii baa ilaahay ku joojiyay iyadii kama soo dhaqaaqinba khalaas ayakii markay soo daba ordeen jibriil calayhi salaam baabaadkiisa la soo baxay baa layidhi sidaa ku yidhi fatamasnaa acyunahum waa ka qur-aanka ilaahay ku sheegay araggii baa laga qaadayba araggii waa laga qaaday maba arkayaanba waxba waa cuquubadii ugu horeysaa layidhi indhabeel wixii meeshaa u yimid munkarkaa xune shaniica inay martida ula tagaan u yimideen nebi luud cidhiidhiga habeenkaa oo dhan ku hayay indhabeel baa ku dhacay bal dad dhan oo indhihii laga qaada ka warrama xaggee u kala soconayaan saasay iskugu wareegeen bal sidaas hal mar keliya jibriil calayhi salaam dhulka intuu geliyay baadkiisii ayuu gooyey dhulkii dhannaabuu gooyey dadna samaduu geeyey kor intuu u qaaday waxaa la yidhi dameeraha iyo ayda ku dhex noolayd iyo xayawaanka ku dhex noolaa cidoodii iyo sawdkoogii samaawaadka laga maqlay baa layidhi khalqiga samadaa maqlay baa layidhi yacni kor u qaadidda kor loo qaaday awgeed iyo halka la gaadhsiiyey roob naarana samada lagaga keenay wa amtarnaa calayhim xijaaratan min sijiil soo ma ahayn musawamatan cinda rabbik wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid cadaabka noocaasa baa ilaahay leeyahay daalimiinta kama fogo indhabeel oo indhaha laga qaaday dhulkaa lala gooyey roob naara samada lagaga keenay dhagax wata welibana dhagax shidmaysa ulcays ayaa lagu baabiiyey waa la qallibo arladana waa laga qallibay say u dhannaayeen bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadlan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaanin dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra